soo dhawaada sharaxaadda sheekooyinka. Maanta waxaan idiin soo bandhigayaa filim xambaarsan dembi iyo cabsi oo loogu magacdaray gabadhii ku xirnayd hooyga dhulka hoose. Sheekadu waxay ku bilaabanaysaa Saara iyo aabaheed Don oo Mari ula degdegaya dhanka rugta caafimaadka maadaama ay neeftu ku dhagayso. Saara waxay gashay xaalad naxdin leh markii ay Mari neefsan weyday, waxayna aabaheed ku boorinaysaa inuu gaariga xawaarihiisa kordhiyo. Markii ay gaareen rugta caafimaadka, Don wuxuu Saara si adag ugu amrayaa inay aamusnaato. Kooxda badbaadada degdega ah ayaa isku dayaya inay badbaadiyaan Mari iyagoo siinaya hawada neefsashada, laakiin dhammaan dadaalkoodii wuxuu ku dhammaan hal xariiq oo toosan oo ka muuqda aaladda garaaca wadnaha. Mari halkaas ayay ku dhimatay. Sheekadu waxay dib noogu celinaysaa 20kii sano ee u dambeeyey, xilli ay qoysku ku jireen casho u muuqata mid degan oo farxad leh. Saara iyo walaasheed Amy waxay cashaynayaan waalidkood Don iyo Irene. Jawiga miiska ayaa isbedelaya markii aabaha Saara uu muujiyo dabeecaddiisa adag ee xukun maroorsiga ah, isagoo u diidaya Saara inay aado munaasabad ciyaareed kana dhigaya mid isaga uun laga amar qaato. Habeenkaas Saara waxay si dhuumasho ah ku raacaysaa saaxiibkeed Chris. Waalidkeed waxay markii dambe ogaanayaan in qolkeedu madan yahay. Aabaheedna wuxuu ku tilmaamayaa Saara inay tahay xaasiyadda qoyska. Munaasabadaas Saara waxay ku raaxaysanaysaa la ciyaarista Chris, kaas oo markii dambe u qaadaya hees uu si gaar ah ugu qoray. Waxay isku muujinayaan jacaylkooda kadibna way isdhunkanayaan. Saara waxay guriga ku soo laabanaysaa subaxdii, aabaheed Donna habeenkii oo dhan ayuu sugayay. Waxay bilaabayaan muran xoogan. Saarana waxay sheegaysaa in marka ay gaarto 18 sano ay qoyska ka tegi doonto weligeed. Saara waxay hooyadeed iyo walaasheed kala hadlaysaa qorshaheeda ah inay dalka oo dhan socod ku marto iyadoo u shaqaysanaysa nolosheeda. Aabaheed ayaa maqlaya sheekadaas, wuxuuna tegayaa qaybta hoose ee guriga, qolka dhulka hoostiisa ah, halkaas oo uu ku soo bandhigayo qol qarsoodi ah oo ka dambeeya khaanadda buugaagta. 3 bilood kadib Saara way qalin jabin doontaa. Sheeko dhex martay iyada iyo hooyadeed waxaa lagu ogaaday in aabaheed uu waqti badan ku bixinayo qaybta hoose ee guriga. Markii Irene ay guriga ka baxday, aabaheed Don wuxuu Saara ku khiyaaneeyaa inay qaybta hoose u raacdo si ay uga caawiso sidayda sanduuq. Wuxuuna gelinaa qolka qarsoodiga ah, isagoo u sheegaya inuu yahay gabaad looga gaashaanto musiibooyinka uu dhisay qofkii guriga hore u lahaa. Kadibna albaabka ayuu ku xiraa. Saara waxay ku qaylinaysaa naxdin iyadoo dalbanaysa caawinaad, laakiin qofna ma maqli karo maadaama qolkaas aanu codku dibadda uga bixin karin. Maalintii afaraad, iyadoo ka walwalsan halka ay Saara ku maqan tahay, hooyadeed waxay u yeeraysaa ciidanka nabadgelyada. Aabaheed ayaa soo booqanaya Saara, wuxuuna si qabow ugu sharaxayaa nolosha cusub ee maxbuusnimada ah. Laga bilaabo hadda waa inay u shaqaysataa wax kasta oo ay helayso, xitaa hawada nadiifka ah ee ay neefsanayso. Ka hor intaanu bixin, aabaheed Don wuxuu ku xadgudbaa gabadhiisa Saara. Ciidanka nabadgelyada ayaa markii dambe soo booqda qoyska, iyagoo leh Saara waxay u badan tahay inay u baxday safarkii ay qorshaysatay. Hooyadeed ma rumaysna in Saara ay guriga ka tegayso iyadoo aan sagootin, gaar ahaan ka hor dhalashadeeda 18 sano. Saara oo keli ah, cabsi badanna dareemaysa, waxay xasuusanaysaa habeenkii ay la qaadatay Chris. Maalmuhu markay socdeen, Chris ayaa guriga yimaada si uu u raadiyo Saara, laakiin Don ayaa been u sheegaya, isagoo ku leh Saara waxay la baxsatay Steve oo ahaa wiil ay daris ahaayeen carruurnimadii. Maalintii 21aad ee ay Saara ku jirtay xabsiga qolka dhulka hoostiisa ah, waxay u dabaaldegaysaa dhalashadeeda 18 sano. Aabaheed Don ayaa u keenaya keeg iyo dharka hurdada oo casaan ah si uu hadiyad ugu siiyo. Saara waxay weydiisatay saacad si ay wakhtiga u garato, balse Don wuxuu u sheegayaa inay marka hore tahay inay isaga u fuliso waxyaabo ka baxsan anshaxa. Markii ay ku gacan sayrtay amarkiisa, wuxuu u geystay garaac iyo jirdal naxariis darro ah. Ku dhowaad sanad kadib markii la xiray, waxaa soo baxday in Saara ay uur leedahay. Keligeed iyadoo aan cidna caawinayn ayay dhashay gabadh ay u bixisay Mari. 4 sano kadib Saara mar kale ayay uuraysatay. Xaqiiqada qadhaadh, Don wuxuu hadda ku nool yahay nolol 2 weji leh. Xagga sare wuxuu kula nool yahay xaaskiisa Irene iyo gabadhiisa Amy, qaybta dhulka hoostiisana wuxuu ku haystaa Saara iyo carruurteeda. Irene oo weli ka walwalsan meel ay ku dambaysay gabadheeda, waxay doonaysaa inay kiraysato qof baara masiirka Saara, balse Don si adag ayuu u diidayaa. Isagoo ugu abaalgudaya dabeecad wanaaga, Don wuxuu qaybta hoose u keenayaa aaladda sawirka iyo dhawaaqa telefishinka si ay Saara iyo Mari ku madadaashaan. Markii dambe Saara waxay dhalaysaa wiilka labaad oo ay u bixisay Michael. Habeenada qaar Saara waxay nolosheeda naxdinta leh u beddeshaa sheeko xariiro ay u sheegto carruurteeda, iyadoo u sawiraysa duni ay ku jiraan amiiro iyo geesiyaal si ay uga qariyaan xaqiiqada qadhaadh. Chris ayaa mar kale soo booqanaya guriga si uu u weydiiyo Saara. Walaasheed Amy ayaa u sheegaysa xaqiiqada iyadoo garowsatay in aabaheed Don uu been sheegay. Waxay ka sheekaysanayaan sidii uu Don mar walba ugu xumaan jiray Saara. Amy waxay ka cabsi qabtaa in Don uu dilay Saara, iyadoo caddayn u soo qaadanaysa xanaaqiisa badan iyo dabeecaddiisa qalafsan. Si wakhtigu ugu dhaafo, Saara waxay carruurteeda u abuurtaa tababar xambaarsan khayaal si ay u iloobaan dunida ka baxsan xabsigooda. Dhanka kale
kale Amy iyo Irene ayaa Dawn ku hor fadhiisinaya beentiisa waxaana qaraxaya dagaal aad u xun. Irene oo aad u caraysan waxay ku qaylinaysaa inay samayn doonto wax kasta oo ay awoodo si ay gabadheeda u hesho. Inta uu dagaalku socdo Dawn waxaa ka dhacaya furayaashiisii. Amy ayaa qaadanaysa furayaashii waxayna u cararaysaa qaybta hoose si ay tilmaamo u raadiso balse Dawn ayaa soo qabanaya furayaashiina dib uga fujinaya. Qorshaha cadaalad raadiska. Maalmihii ayaa isguray. Sarahna waxay dhashay wiil kale oo ay u bixisay Thomas. Iyadoo degan xeeladna adeegsanaysa Sarah waxay ku qancisaa Dawn inuu wiilka saddexaad kor u qaado. Waxay ugu qiildayaysaa inaanay meel kale u harin carruur kale iyo inaanay keligeed 3 carruur ah ku korin karin godka hoose. Wiilkii yaraa waxaa looga tegayaa barandada hore ee guriga si ay Irene u hesho. Dambiisha uu wiilku ku jiro waxaa lagu dhex daray warqad ay u muuqato inay Sarah qortay taas oo ay ku sharaxayso in wiilku iyada leedahay ayna doonaysaa in Irene ay koriso. Sarah waxay rajaynaysaa in tilaabadani ay noqoto bilowga dildilaaca derbiga u dhexeeya nolosha dushooda taal iyo xabsiga ay ku dhex jirto. Warqadda ku dhex jirtay dambiisha Sarah waxay ku sharaxaysaa in iyada iyo saaxiibkeed aysan haysan awood ay ku koriyaan ilmahaas yar. Balse waxaa jirtay warqad kale oo qarsoon oo Sarah ay ku codsanaysay caawinaad. Nasiib darro Dawn ayaa helaya warqadaas wuxuuna mar kale u geystaa Sarah gacanqaad iyo jirdil naxariis darro ah. Sannaduhu waxay isku beddelayaan sannado kale oo maxbuusnimo ah. Carruurtu waxay dhisayaan duni khayaali ah oo ka ballaaran sheeko xariiradii hooyadood u sheegi jirtay. Waxaa soo maray 14 sano oo ay Sarah ku xiran tahay qaybta hoose ee guriga. Mary waxay hadda gashay dhiirigelinta gabadh dhalinyaro ah oo qurux badan. Habeen ka mid ah habeenada ayay isku dayaysaa inay isqurxiso. Markii Dawn uu muujiyo xiisaha uu u qabo quruxda gabadhaas, Sarah waxay si ilmeyn leh uga baryaysaa Dawn inuu gabadheeda nabadgeliyo iyadoo ka baqaysa in Mary ay marto dhibkii iyada lagu sameeyay. Isagoo uga jawaabaya baryadaas, Dawn wuxuu gebi ahaanba daminayaa korontadii xukumi jirtay aaladda hawada nadiifka ah ee qaybta hoose. Mary iyadoo neeftu ku dhegayso waxay muujinaysaa walwalka ay ka qabto inaysan weligeed la kulmi doonin cid kale saaxiibona yeelan doonin. Wadahadalkaas dhexdiisa waxaan ka dhex ogaanaynaa in Mary aysan wax fikrad ah ka haysan in Dawn uu yahay aabaheed islamarkaana ah awowgeed. Dhanka kale Thomas oo hadda weynaaday wuxuu helayaa ayeeyadiis Irene oo ku ooyeysa qolka Sarah. Irene waxay Thomas uga sheekaynaysaa siday Sarah u ahayd qof heer sare ah. Xilligaas oo kale qaybta hoose ee guriga waxaa ku dhibay dhibco roob ah oo ka soo daadanaya saqafka. Sarah waxay dhex galaysaa daloolka saqafka iyadoo isticmaalaysa malqacad ay ku qodayso jidka u horseedi lahaa dusha sare. Sarah waxay dusha sare ka muujinaysaa calaamad muujinaysa argagax iyo caawinaad Dawn. Deris ayaa arkay calaamadaas wuxuuna u sheegayaa Dawn. Dawn wuu oggolaaday in Michael qaybta hoose lagaga tago. 20 sano oo maxbuusnimo iyo kadeed ah ayaa laga soo gudbay. Waxaana hadda dib ugu laabanaynaa bilowgii filimka xilligii Mary loola cararayay rugta caafimaadka. Sarah aad bay ugu welwelsan tahay nolosha Mary waxayna dareentay deganaan dhammaystiran markii ay dhakhaatiirtu ku guulaysteen inay badbaadiyaan nolosha gabadheeda. Markii kalkaalisadu weydiisay taariikhda caafimaad ee gabadha waxaa loo sheegay in Mary guriga lagu dhalay laguna daweyn jiray oo keliya geedo dabiici ah. Sarah waxay si tartiib ah u baaraysaa rugta caafimaadka iyadoo raadinaysa waddo ay uga baxdo balse waxay u muuqataa mid daalan jihada ka qasan oo nolosha ka rajo dhigtay. Iyadoo isku dayaysa inay baxsato Sarah waxay biyo ku shubaysaa waraaqaha caafimaadka waxayna ka fogaanaysaa Dawn ilbiriqsiyo ka hor intaanu soo gaarin. Sarah waxay gaaraysaa kalkaalisada iyadoo u qiranaysa inay u baahan tahay caawimaad degdeg ah. Sarkaal ka tirsan ciidanka nabadgelyada ayaa u tegaya Dawn si uu u wareysto islamarkaana ciidanku waxay u taxaabayaan xabsiga. Sarah waxay Mary ugu bishaaraynaysaa inay hadda xor yihiin oo ay nabad qabaan. Gurigii waxaa ka buuxsamay ciidan kuwaas oo soo badbaadiyey Michael. Irene iyo Thomas ayaana aad uga naxay markii ay arkeen Michael oo neeftu dhibayso xilli godka hoose laga soo saarayay. Dawn wuxuu wax walba oo dhacaya ka dhex arkayay gaariga ciidanka nabadgelyada gadaashiisa. Natiijada iyo cadaaladda. Maalin xagaa ah oo qurux badan Mary, Thomas iyo Michael ayaa ku ciyaaraya banaanka baadiyaha dhexdiisa halka Sarah, Irene iyo Amy ay ka daawanayaan barandada guriga. Mary waxay dareemaysaa qof ku soo socda wadada. Waa Chris oo ku yimid mootadiisa. Isaga iyo Sarah waxay u baxayaan socod wuxuuna ka xun yahay inuu aaminay sheekadii beenta ahayd ee aabaheed uuna dadaal dheeraad ah u geli waayay raadinteeda. Wuxuu siiyey hadiyad ah koofiyadda difaaca madaxa oo casaan ah taas oo uu iibiyey markii ay 18 jirka ahayd xilligaas oo ay qorsheynayeen inay safar wada galaan. Ugu dambeyntii iyagoo faraxsan waxay u baxayaan safarkoodii mootada ee ay muddo dheer sugayeen si ay u dareemaan neecawda xorriyadda. Gabagabo fadlan iska diiwaangeli oo furo ogeysiiska si aad u daawato muuqaalo kale oo kan la mid ah. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Nabadgelyo.